Soomaaliya dhibaatadan ayaa ka taagan ma aqaan inaad ila aragtay in kale ilaa iyo 12 shay oo gudaha dalka Soomaaliya badankood laga heli jiray laakiin hadda dibadda laga soo dhoofiyo wuxuu yiri car yaa igu beenin karaya ayuu ciwaan kaga dhigay Professor Yaxya Caamir warbixintan digaag ama dooro iyo ukun ganacsi ahaan laga keena Brazil iyo Ukraine ayaa la keenaa dalka Soomaaliya digir la mid ah midii caadiga ahayd ee dalkeena ka bixi jirtay ayaa laga soo dhoofiyaa Kenya iyo Ruushka yaanya caadi ah oo aan gasacadeysnayn ayaa dibaddana looga soo dhoofiyaa abuurka yaanyadana waxa laga keenaa dalka dibaddiisa ansalaato iyo karooto ayaa waxay kaga timaadaa Soomaaliya Shiinaha iyo Turkiga daroogada dhalinyarada ee isticmaasho badankood konteenarada badeecadaha lagu keeno ayay ku dhex daasan tahay lamana canshuuro camba fareesha ayaa dibaddana looga soo dhoofiyaa iyo basbaas dabeeciya oo cagaaran oo Hindiya laga keeno biri dhaweyd waxaa la bilaabay in mooska dibaddana looga keeno laakiin hadda waa uu istaagay sababtana ma garanayo waxa ka daran xoolo dhaqatada reer miyiga ah ee gobolada ee caanaha loo doonan jiray ayaa maanta caano waxay u soo doonanayaan xamar halkii iyaga markii hore ay keeni jireen Muqdisho si miyiga ay ugu samaystaan xus iyo xaflada aroos suuqa degmada ugu dhowna lagama helo galaas caana ah degmadana waxa ku hareeraysan xoolo dhaqato oo ay caan ku tahay leen laga keena dalalka Masar iyo Koonfur Afrika ayaa loo soo dhoofiyaa Soomaaliya basal baradho birta canjeerada iyo burjikadii lagu karin lahaa ayaa Itoobiya iyo Kenya looga keenaa midii ceel buur oo galgaduud lagu farsameyn jirayna suuqa dacayad ayaa looga saarayaa shidaal laga keena Itoobiya oo markiisii hore ka soo degayay Djibouti ayaa laga isticmaalaa gobolada qaar sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka oo ka raqiisan kan Muqdisho ka soo dega sababtuna mid waxa la canshuuraa 3 jeer mid kalena dhowr iyo 10 canshuur ayaa ku dhacda daawo aan lahayn waqti ay dhacayso ama expire date laguna daaweyn karo cudurro badan ayaa loo keenaa Professor Yaxya Caamir markuu wuxuu yiri waxa socda dhamaan waa diyaarin loo diyaarinaya in mustaqbalka aan noqono suuq loo soo dhoofiyo wixii isaga uu dhoofin lahaa wuxuu ku soo gabagabeeyay codsi wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo guud ahaan inta ay qusayso waxaan ka codsanayaa in wax laga qabta arrintan lagu niyad jibinayo kuwii gudaha ka soo saari lahaa waxa aan u baahannahay wuxuu ku soo gabagabeeyay ku soo dhawow Soomaaliya oo moos loo soo dhoofinayo iyo xoolo dhaqato Soomaali ah oo caana xoolaad xamar ka soo doonanaya cariya igu beenin karaya kaale indhahaada ku soo arag adiga ayaa yaabi doona ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Professor Yaxya Caamir waxa muuqanaysa marka dhammaan waxyaabaha uu ka hadlay in geyga Soomaaliya laga heli karayo Soomaali kale ayaana ganacsi ahaan u keysanaysa waxaana dhammaantood lagu niyad jebinayaa ganacsatadii Soomaaliyeed iyo beeraleyda Soomaaliyeed ee gudaha dalka wax ku soo saari jirtay waana marka aan leeyahay dadka wax bartay iyo dadka maalqabeennada ah waa in ay u fakaraan habka hadda ay u fakarayaan habka duwan kuwa wanaagsanna waa ay jiraan adiga maxay kula tahay deegaankaada ama magaalada aad joogtid qaybta hoos aragtidaada ku reeb ma ku aragtay dhammaan waxyaabahan oo Professor Yaxya Caamir banaanka u keenay waad mahadsantahay